السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا كحرن channel كينا دمانتين سو dhawaad صاحبيال caawa iyo abdeedid ugu dambeeyay ama qodobada markaa u xisaab badan iyo barnaamijkeenan oo aan rabay inaan ku soo qaato oo barnaamij aad u xisaab badan oo aynu uga hadlayno xaaladda dagaal ee markaa ka taagan gobolkii Gado iyo maamulkii Jubbaland ama dhulkii Soomaaliyeed ama wadankii Soomaaliya. Waana xaaladda hadda markaa kacsan ee dawladda Itoobiya ay amarka ku siisay dawladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Gurguurte muddo 3 cisho gudahood ama 3 bari gudahood in gabi ahaanba ciidankii Soomaaliya gobolkii Gado laga bixiyo oo ay ka tagaan oo yaa lagu wareejinaya waa ciidankii Itoobiya ayaa ku wareegaya. qofka amarka soo bixiyo waayo waa ciidankii Itoobiya ama saraakiishoodii ayaa soo bixiyay Abiy Ahmed xitaa ma ahan oo amarka ayaa la soo siiyay waa ninkii Xasan Gurguurte ah oo maxay sababtaasi ku dhacday waa arrin u baahan marka in la isweydiiyo ilaa iyo maalintii doorada baraha bulshada dadka iyagu marka ku hadla afkii dawladda ee xasab shaqeynaya waxa ay bari bulshada wareejinaya dawladda Itoobiya ayaa waxa ay Jubbaland ku amartay ciidankoodii in marka ay ka bixiyaan dhulkan ama ciidankii Jubbaland ayaa baxsaday oo Itoobiya ama Kenya galay oo marka lagu amray in ay dib u soo baxaan marka la isma weydiin war dhulka horta hadda Itoobiya ay ku amartay dawladda Soomaaliya in ay ka bixiso ciidankooda oo ay ku celiso Soomaaliya ma dhul Soomaaliyeed ba mase waa dhul ay marka Itoobiya iska leedahay ilaan marba haddii Ilaahay uusan ku dhalin ama aadan dhaqankeedii lahayn in dawladnimadii aad marka aqoon u leedahay ama maamulkeedii aad aqoon u leedahay de wixii waxaad ka dhiganaysaa wax walba sidii aad marka dhaqankaagu awalba adiga ahaa waxayna weyn asbuucan horaantiisiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Itoobiya aaday oo uu la kulmay Abiy Ahmed iyo shirki uu ka qayb galayay khaasatan waxa isugu yimid wasiirre iyo wax meelo hoose ay ahayd bas Xasan Sheekh waxa uu jecel meel walba inuu tago waa uu tagay sawir aad u farxuna waa laga soo qaaday iyo isagoo murugaysan oo waliba loo hanjabayo Xasan ula jeedada Itoobiya marka uu tagayna maxay ahayd waa in uu Abiy Ahmed gacan ku siiyo Xasan Sheekh Maxamuud in Jubbaland marka Ahmed Madoobe lala qabto oo meesha laga bixiyo Abiy Ahmed laftigiisu marka uu yaqaana Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya madaxweynaheena doqonnimadiisa iyo nin marka maskaxda ka jiran inuu yahay oo aan de mansab dawladeedna aqoon madaxweynena dhaqankeeda marka aan lahayn meeshii uu marka Ahmed Madoobe uu kula duul lahaa Abiy Ahmed ninka uu soo hajabay uu soo baxay Ahmed Madoobena taageeradii ayaa u muujiyay kaaga darana safiir cusub ayaa Soomaaliya loo soo magacaabay oo safiirkaasi muxuu yahay waa rag Itoobiyaanka ah ee ku dagaalamay Soomaaliya badeeda marka inay xoogaan Soomaaliyana bilaa shuruud ayaa ay ninka ku aqbashay isagoo safiirka Itoobiya ah haddaba arrinta meesha ka taagan ayaa waxa ay tahay wax walba buunbuuniyaan iyo si walba sameeyaan dadkan baraha bulshada ugu jira Xasan Sheekh Maxamuud waxba ma sameynayso taasi balse sidee ayay ku dhacday nin madaxweynihii Soomaaliya ah oo isagu wadankan u dhaartay oo dawladnimadii marka hoggaanka u haya oo madaxu ugu sareeyay wadanka ah in dawlad dariska ah uu cabsi inta la ka baqo ama sidii adoonta marka ugu shaqeeyo oo uu u rukuuco isagoo adoon ah marka ninna ceebtii ma daayo baalna caadadii ma daayo Xasan Sheekh Maxamuud waxaynu xasuusanaa taamkiisii hore xitaa markii uu ahaa madaxweynaha magaaladii Muqdisho waxa ku xukumayay oo madaxweynaha oo ku maamulayay waa nin ay gabradhii jireen oo waliba marka sarkaal isagu ciidamadii Itoobiya ee Soomaaliya joogay ah waxaynu xasuusanaa sawirro marka xitaa baraha bulshada waaga ka soo galay oo Xasan Sheekh Maxamuud uu lu kor saartay ninkan gabre oo xasanna isagoo fadhiya Xasan Sheekh Maxamuud farna markaas wax lagu leeyahay waa nin sarkaal ah oo ka soo jeeda dawladda Itoobiya ciidankii markaas Muqdisho joogay ah oo isagu Muqdisho dhanba marka madaxweyne ka ahaa filla Soomaaliya deganaa maamulayna Xasan Sheekh Maxamuud oo beeshii marka Xasan Sheekh Maxamuud hadda taageersan ama dadka ku taageersan waaga maxay qabanayeen de gabra marka amar laga wada qaadanayay dawladdaas way dhacday oo farmaajo iyo khayr ayaa yimid oo laba nin oo labadoodba marka aqoontood aad u hersaraysa oo diyaarsan dhinac walba gabre maalintii marka iyagu ay dawladda qaateen farmaajo madaxweynaha noqday iyo ra'iisul wasaare khayr ay yimaadeen isla maalinta codka uu helay farmaajo diyaaradda ayaa u sii saarnaa oo boorsadiisa ay qaatay laakiin saddu Xasan ku guuleysan lahaa uu sii joogi lahaa oo de Xasan wuxuu yaqaanaa nin marka isagu uu madaxa kaga tagay wuxuu rabana ku sameeyo taa waxa ka dambeysay Xasan markii Itoobiya aadayay ee shirki marka wadamada Afrikaanka isugu imanayeen ee qolka inta lagu soo xirtay loo diiday in la baxay inuu baxo loo diiday ee lagu bahdilayay ee wax walba lagu sameeyay ee isagoo orday ku soo dhuuntay inta wiilashii marka ahaa presidential security-giisa ahaa ee Soomaalida ahaa ay ku dagaalameen baastoolooda inta la soo baxeen magaalada Addis Ababa dhexdooda oo ay wax iska celiyeen wiilal geesiyaal oo Soomaaliyeed
xasan sheekh maxamuud ceebtaa maalintaa ku dhacday tii uu gabra ku sameeyey dhowrkii jeer ee hadda uu Addis Ababa aadayey intaba dee qof aan caqli lahayn oo aan damiir lahayn oo qalbada dameerka ah ayuunbaa intaas lagu sameeyey ama dowlad intaa ku samaysay isagu weli markaa ku qanacsan in ay markaa la hadlaanba marka haddii uu damiir leeyahay xasan oo in uu markaa qof qab ku jira yahay dee marnaba Itoobiya mana aadeen lamana sheekaysteen dhulkiisana wuxuu dhihi lahaa war iiga baxa ciidamada waxa sameynaya ama hadda xasan sheekh maxamuud hanjabay waa kuwa waa dhaweytole markii Soomaaliya ciidamada loo ogolaanayay xitaa wiilal Soomaaliyeed oo xarunta UN ka dhex fadhiya ay diideen taagnaayeen Soomaaliya Itoobiya uma ogolin ay ka baxdo xasan sheekh maxamuud iyo fiqi ay markaa go'aanka gaarayeen 2,000 oo ciidan ay dhahayeen ka soo qayb gala oo lagu qasbo iyaga la dhahay nasiiya waliba war xasan sheekh maxamuud marka hadii laba mid ba meesha taala xasan sheekh maxamuud iyo dowladan uu wato iyo inta isaga marka ku xayndaaban the system dowladood ayaysan aqoontooda lahayn oo waxa ay rabaan marka boob iyo dhac iyo sida islaamaha loo dhaca iyo sida dhulka loo boobo iyo sida xabaalaha loo qoto kaliya ayaa ay yaqaanaan oo waa mooriyaan marka shufta ah aan adduunka la xisaabtami karin ama waa dad baqanayo aan markaa hankooduba ahayn inay adduunkiina markaa ka muuqdaan dee dhulkoodii iyo waddankoodiina markaa ay iyagu taladoodii qabtaan oo ay ismuujiyaan intiiba markaa ma ahan oo waa aynu u jeednaa xasan sheekh maxamuud yacni han madaxweynenimo ama nin waddankiisii markaa isagu maamulanaya kuma ogin inuu islaamo dhaco ama uu waxboobo ma ogiye markay timaado waddankii Itoobiya oo intaasoo dhibaato u geysatay xasan sheekh maxamuud madax ayuu hoos geynayaa isagoo markaa cabsi muujinaya dowladii Itoobiya ee amarka soo saartay ee dhulkii Soomaaliyeed markaa dowladii Soomaaliya ku amartay inay ciidankoodii ka bixiso dowladii Soomaaliya waxay dacwad la timid ah Axmed Madoobe ayaa dhibaatadan oo dhan markaa ka dambeeyay ama Jubaland Itoobiyana way ka aqbaleen in gobolkii Gada marka ay dowladii Soomaaliya ka soo baxdo ilaa ay ku dhaashay hadda qofka ma dhihi karna madaxweyne ayuu waddanka u yahay mise qof waddankii markaa lagu aamini karo ilaa waa aynu u jeednaa oo waa nin sidii qof la adoonsanaya ka baqaya markuu arko dowladii Itoobiya ama ninkii Abiy Ahmed waa nin khayrkiisa waa nin uu ka adagay hadduu xitaa dagaal isku dayo waa nin wax walba ku samayn karo balse haddii de qalbada ay ku madowdahay oo aad aaminsan tahay qof liito oo madaxa looga taagay inaad tahay de waxba ma samayn kartid markaa ee inaad shicibkaaga marka aad ku laabatid oo aad dhacdid oo aad boobtid iyo dumarka iyo carruurta inaad guryaha ka dadumisid kaliya ayuunbu markaa awooddaada noqonaysaa awood waddankaaga aad ku difaacatid ma yeelanaysid waana dhaqanka marka xasan sheekh maxamuud aynu maanta uga jeedno dadka shicibka ah ee tabaalaysan ee tamarta daran maruu dhaho guryahaygay ka masiirsayiin oo gurigan baan dhistay maxaa idinka galay mar guryahoodii uu ka dundumiyo maruu dadkii qabuurihii soo faqdo balse waddaniyadii iyo waddankii ugu dhaarto madaxweynaha uu ahaa marka ay timaado addoon madaxa looga taagan yahay oo baqanaya ayuu noqonayaa marka adigu ama qabiil ku taageer ama siyaasad ku taageer ama waxaad rabtid ku taageer taasiniyow nin madaxweyne u qalmo maaha Soomaaliyana iska daa madaxweyne xitaa guddoomiye degmo uma qalmo xasan sheekh maxamuud dhaqankeediina ma lahan maamulkeediina ma lahan mansabkeediina ma lahan sharafteediina ma lahan nin qab ku jira oo markaa aaminsan inuu mas-uuliyad hayana maahan waa nin aaminsan inuu meeshan ka faa'iidaysto oo uu wax dhaco oo wax boobo haddii uu ajnabi yimaadana ajnabigu wuxuu u baabi'inaya markaa isla waxba kama gelin oo Soomaalinimadii aawi iyo dowladnimadii adaa sheegaysid wuxuu dhacaya uu boobaya kaliya ayaa wax walba kala weyn video baan ila fiiri فاتا ديارة إحمدنا ورحنا الكفتر ما كعبتنا إنسان الماء الجميع وضدكي أيوة مركان مقالة بلد حاول دقنا وساك وحا كسو كعي وديارة ديارة دولة دي توبيا إسوك إسي أميها الكفتر ومقالة اللوصة فالصحي ومقالة سوكر مراي وانا عيدن كي توبيا مركا أمرك بسي عيدن كي صومالي إني ماشا كبحان أو أي كتاقان ديارة داس مركا محال بسو كعي و dadkii ayagu deegaanka ahaa ama dumarkii magaaladii balad xaawo ayaa iyaga oo xanaaqsan oo Itoobiya u hanjabaya oo caytamaya ayaa ay banaan baxis ugu soo baxeen oo hanjabadoodana maxaa kamid ahaa waa tan bal fiiri hanjabadooda waxaa
dadkaas oo hanjabaya ee aynu u jeednaa waa dumarkii marka ayagu balad xaawo oo Itoobiyaanka u dhaaranayo oo waliba ku hanjabaya in Itoobiya ka adag yihiin oo ay laynayaan waxay rabaan ku sameeyaan dhulkoodana ay xoreysanayaan madaxweynihii dhamaa ee wadankii Soomaaliya aaway Xasan Sheekh Maxamuud waxa kaliya ee uu ka adag yahay waa dadka danyarta ah ee habaartamaya ee meelay aadan la ee gaajadu hayso inuu marna lacagta u dhacay ee dawladda ka dhacay ugu faano oo guriga ku dhisto iyo mar uu ayaga baraakooyinkii ama jiingadihii ay deganaayeen dadka danyartii uu ka burburiyo oo uu xoog isticmaalo goobihiina markaa dad ganacsata laga galo ka doqonkaas qofka madaxweynuhu aaminsan oo khayrkii ka baqaya dadkiisii danyartahana baabi'inaya danimayo idinka cirka rubka waxa arkay ninkii kale oo isaguna channel ordaaye oo taagan Itoobiya iyo Kenya waa walaalaheen dhibaato inayna dhex marta ma rabno balfeeriya oo dagaal inaan anakuna ula tagna iyaguna ay noola yimaadaan ma rabno walaalaheen baad tihiin ee nadaaya balse Xasan Gurguurta iyo isagoo isa soo kaxaysteen waxay rabaan maamul dhan oo dhisan oo Soomaaliyeed oo maamulkii Jubbaland inay ciidamo keenaan oo kula dagaalamaan oo ciidan Soomaaliyeed meesha ku baabao yani aqal xumada ninkan talada haya iyo kuwa la shaqeynaya ay markaa aaminsan yihiin waqtigii uu farmaajo joogay waxaynu xasuusanaa xuduudaha Soomaaliya oo dhan ciidamadii danab iyo gorgor iyo balaayo dhan ciidamo la soo tababaray quruxda karaamada sharafta qaabka u labisan yihiin xuduudii ayaa la wada keenay oo Soomaaliya borderkeeda markaa la soo gudbay Soomaaliya ayaa awood u lahayd oo maamulanaysay xasan maalintii uu xukunka qabsaday oo talada uu la wareegay wax aliyaal wixii buugaag iyo shaqo socotay iyo hawl socotay dhan oo lagu wareejiyay kow wuxuu ka bilaabay burburinta ciidankii Soomaaliyeed ee xuduudaha joogay ama ciidankii militariga ee Soomaaliyeed ee dhisnaa isaga oo markaa ka duulaya waa ciidan farmaajo dhisay looma baahno warma farmaajo dhulka iskala mise dawladda farmaajo iskala shakhsi ayuu ka yahay ciidan Soomaaliyeed bay ahaayeen dalkuna waa dal Soomaaliyeed Soomaaliya oo dhan markaa waa loo wada sameeyay yahay balse farmaajo wax sameeyay isagoo ku ordaya ayaa ciidankii wax markaa la qarxiyo oo la baabi'iyo iyo wax lacagtii loo diiday iyo wax la kala eriyo ay noqdeen maantana ciidan ayaa uu raadinayaa wadankii uu ku difaaco marka ma doqonba mise wuu iska yeelayaa ay maxaan dhihi karnaa dawaan nin aqliga markaa ka jiran oo aan caafimaad qabin markaa madaxweynaha talada hadda uu hayo Soomaaliya oo dee wax aynu ku tilmaamno haba yaraatee aynan garanayn ninkaas liita ayaa Soomaaliya madaxweyne ka ah oo Jubbaland ku boojaysan Soomaaliyana wadamadii shisheeye intay soo galeen isagii loogu hanjabayo oo wadanka ka baxla leeyahay oo kullaba magaalada Muqdisho aadayn wax maahay afir salaf Soomaaliya ninkaas ayaa hadhow dadku leeyihiin waa madaxweynaheennii oo qabiil baan ku taageeraynaa ama madaxweyne moo noqday haddii ay aqli leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud kuma safaaneen وما سمعنا المدحوينة أي نوعي ويكحشون هاي وين كدوم الله هاي روح أنا بحسن شيخ محمود هي كرباشر حوجيئة إنه نسلا في رنو هي كابتن أيوب مركز في عنو كرباشي لقانا كتومي إثيوبيا وحيتي صدح بري وعينك جاب حلا نصور ياش حمسة مرحوم يا حسن موافق حسن وبير صدري بالحاو وإثيوبيا تريا ورغم دوسار دولة الصومالية ليش إثيوبيا وجهت وحيتي وحاوله أما هذا سنة أما حلي إثيوبيا ما هي أحمد مذوبي واي ورا أحمد يكون الديني أرد نكال كانك بالحاو كان صار يوا إبي أحمد أرد شوى مس الدولة فضل الكبا وحالك يكي نكليري هذا فخر وجح شوابي جحوا باسبورك وعيان كدران مد الصومال الدونك باسبورك وعيان كدران وحيوا باسبورك الصومالي يعني فقه waa nin aqoon leh maahan nin wax kale og maahan dawladda Itoobiya inuu u jawaabo iska daa balse shaqadiisi ayuusan xitaa ogeyn waxa uu sameeyay talaabada uu qaaday hadii nin aqli leh u yahay marka hadaladan maanta kuma hadleen ama ninkaas wararsan ma jawaabeen ee arinta baasaboorka hadlay arinta ka weyn isagoo wasiirkii gaashaandhigga ah ee taagan marka ciidamadii Itoobiya oo Soomaaliya wuxuu ku soo galay oo u hanjabay marka dawladda Soomaaliya arrinkaas ay wax ka qaban lahaa fiqi bas muxuu qabtaa isagii ayaa ah ninaan aqoonteediiba lahayn waxa loo dhiibay oo magaciisana marka aan qori karin oo dawlad marka wada wararsan adduunkiina ka cabsanaysa dadkii kale Soomaaliyeedna rabta marka inay dagaal iyo xoog ku qaadaan bal haddii ay xitaa wax qaadayaan may awoodooda dadka tusaan oo ku qaadaan waa la arki lahaa markaas ayuunbaa wax loo qiri lahaa balse dee nin isaga gurigiisaba difaacan waaya ma waxbu qaban karaa waa maya waa afkun bay ka nool yihiin waxa kaliya u joogaana waa dhac iyo boob iyo in waxaas un ay sameeyaan videogana kuma daahayno halkaas rabaa inaan kusoo gabagabeeyay inta sumaan doona video lamida iyo wixii cusub markaa kusoo kordhay insha Allah waxaan idinka tagayaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.